सा अब तू रहना यहाँ बन के रहूं साया तेरा इस इश्क में मर जावा तू जो कहे वो कर जावा हो इश्क में मर जावा तू जो कहे वो कर जावा ديب ديب كواوي الله نقعد نقيقة ترى gacmaha iska fur ninkaas inaan ka daba tagno waay sidaan inaan ku dhaafno macquul mahan waa dilaynaa ninkaas ديب أديك لما أركي يلا هذا أديك لما يقرحنا قال أدي مصوالته maya arohi anagoo dhimanayn nagama tegaysa adiga aroohii ma tiido qof kale ma dili kartaa waad ogtahay dadka oo naxariistaa dhimashadiina waan ku farxayaa balse maanta maaha maalinkan weliba aniga gacanteeda idinku dili doono مقدشو كيبل تي في naqsada meeshaad naga bixiya nolol inaan ku baxno waa muhiim 6 sakin oo kaliya ayaa noo hartay soo carara albaabkan banaanka ayuu ku xiran yahay wadda kale waa inaan raadsanaa nakeena waqti ma haysano 5 daqiiqo oo keliya ayaa ka dhiman waa inaan wadda raadsanaa si aan meeshaan uga baxsano nakeena daaqada firabo daaqadan inaan jibino waxba kama faa'iideen saddexdeennana kama wada bixi karna waa inaan waddo kale raadsan daaqadan mooye wadda kale aniga uma jeedo waddo kale waan haysanaa annaga aawal waa inaan bambada fiilada ka furnaa war adiga kaale ma waxaad mooddaa alaabta ay ciyaalku cayaarayaan waa wada dhimanaynaa ama waa wada noolaanaynaa waxaan ku qasbannahay inaan nafteenna badbaadino waa inaan furaa maya aroohii maanta adiga bombada iskalaab walaa furaad gabdhaha wax faansii anaga dhan sheerta aroohii warka way naga siinaa si khaldan deebanan u furta gabaran anaga dhan aan meeshaan ku tirtirano laadan lagta waalan kaale adiga ma waalan tahay ha ku dheelin naadha naga jooji bamkaan aad ku ciyaara fiiladan gooyaane fiilada iska dhaafa koley nafteeda hal mar oo keliya ayay go'aysaa ama waa dhimana ama waa noolaanaya waa inaan fiiladan jiraan waa inaan geesinimo muujiya aniga waxaan rajaynayaa fiilada fiican oo loogu talagalay inaan mindida la helo walaal waqti maysana dhaqsanoo furnaa ukaada adigana waa fur mooyahay
waan jaray waan badbaadnay inaan meeshaan sii fadhino wax faa'iido nooguma jiro waa inaan baxnaa oo aan diib ka daba tagnaa nakeena intuusan diib elbarka gaarin waa inaan aniga ka daba tagaa si aan u celiyo diib meeshan inaan ku jiro maaha alloor waa inaan albaabkan jibinaa xal kale ma laha waana isku dayaa inaan jibiyo qorshahayga xiga wuxuu noqon doonaa hooyadayda ayaa meeshan ka wadanaya elboorka ayaan wada aadaynaa meel gooni ayaana degaynaa si aan farxad ugu wada noolaano labadeena aysan cid kalena soo dhexgalin allayle ragnimo saniga dheh ninkana kaa hooyadaa waxaa rabtaa hadda tigi intaa u soo jirta haddana si nabada aad meeshan ugu kaxayso oo weliba aad dubay ku geyso si nabada marba haddii aad rabto inaad si raaxale ku noolaato maskaxdaada waa inaad ka shaqaysiisaa cadowgaagana waa inaad ogaataa tillaabada ay kuu soo qaadi rabaan iyo meelaha ay kaa soo gali rabaan si markaas aad uga awood badiso dhaqsada meeshaa naga soo wada taara aawe diib adiga aniga been ayaad ii sheegtay waadna ii khiyaantay waxaad isku dayday taaraadaada inaad disho ood kow ka siiso anigoo taaraadaada ah ayaad been ii sheegtay taas micnaheedu wuxuu yahay inaadan weligaaba ii jeclaan aniga doqon yahay maxaa meeshaan ka samaynaysaa warkaali ninka adiga naftaada ku dhaafsiin rabay miyaad dartiisa dhiig iskaga daadinaysaa war waxaa loo baahnaa inaad asiga dhiig ka daadisid ma ahayn inaad adiga dhiig iska daadisid doqon ayaad tahay war raadsa ninkaas ee asiga dil aniga ninkaas weligiis mii jeclaan beenoo ii sheegay beenay diib naftiisa maahane qof kale uu jecel yahay adduunkan ma saarno waqti ayaad haysataa indhaha kala fur مسلسلكani wuxuu gaar u adiga yahay maxaad waxaan u samaynaysaa muqdisho marka hore aniga walaalkay nafteenaad badbaadisay haddana aniga eed nafteeda badbaadinaysaa maxaad sidaan oo dhan ugu fiicnaatay adiga ii sheeg bal maxaa waay waxaan weliba waxaan ahay aniga taaraadii isku dayday hal ma ahane laba jeer inay adiga nafsadaada goyso wejigaagana kaa badashay sidaana kuu gashay haddana adiga ma ahane weliba cunugaaga caloosha ku jira inay disho isku dayday marka maxaad aniga iigu naxariisanaysaa halaan asxaana maxaad iigu samaynaysaa ina inacdaal rabay haa waan ku necbahay aniga adiga waxaan kaa sii necbanahay canugayga aabbihiis diib 3 naf oo keliya iskuma dayin inuu gooyo ee wuxuu isku dayay 4 nafood inuu gooyo 4taas nafoodna waxaa ka mid ah nafta asaga aabba maxaan dhihi lahayd ninkii isku dayay canugiisoo caloosha ku jiro inuu nafta dhaafiyo sideen aniga ku dhaafaa marka xayawaankaas xayawaanku dhala ma rabo canugayga markii uu bannaanka u soo baax xataa wejigiisa inuu sii arko adigana diib dartiis waxyaabo badan ayaad u samaysay masaakiin badan oo dembi leen xataa naftooda waad u dhaafisay waxaa loo baahan yahay jaceylka iyo naxariista faraha badan ee gudahaada ku jira diib aad u qabto inaad bannaanka ku soo mantagto maanta muxuu ku gaarsiiyey inuu adiga ku qarxiyo balse way u suurtageli wayse waxaa loo baahan yahay ninkaas inaad iska ilowdo haddana waxaa la joogaa xilliga aad ninkaas xunkaa aad ka aarsan lahayd horaa waxaa loo dhahaa cadowgaaga cadowgiisa waa adiga saaxiibkaa saddexdiina waa inaan isbahaysannaa oo weerarnaa markaas ayaan guulaysanaynaa aniga mowqifkayga ugu weyn wuxuu yahay diib inaan gebi ahaantiisaba baabi'in
aniga waxaa igu ballan ah diib inaan nafta dhaafiyo oona adduunka ku sii noolaanin adigoo deg waaya aruuhii taaraa iyo firaaj waa ay badbaadeen waxay ila tahay qof inuu bamka fiyuus ka bixiye sidaas ayayna ku badbaadeen iyadana waxaad tidhahdaa meesha isaga tag taleefon u dir haddii ay taas samaysana waa ay badbaadaysaa waaya dhammaan ciidamada siday u dhan yihiin waa inaad wargelisaan erebooradoo dhan waa inay xaadir ku ahaadaan ma raba aniga diib inuu iga badbaado middeeda kale waxaan idin sheegayaa waxaan u malaynayaa qof inuu hadalkeenna dhegaysanayo مسلسلكani wuxuu gaar ku yahay muqdisho TV haye yarta xaggeed u degdegsantaa maad ii sheegtidne maxaad samaynaysaa hadda aniga guriga habrirta inaa ada ayaan rabaa in fasax waa ku baryaa been baad sheegaysaa habaryartaa iyadaaba 3 maalmood la la'yahay waxaan ku weydiinayaa sulaaqa markii ay dhimatay kadib shaqada dhuudhuumasho ayaad uga soo tagtay diib arrimihiis wax miyaad ka og tahayne ii sheeg bal diib miyaad la shaqaysaa ii sheeg falaydkuu ku qoran yahay diib muxuu damacsan yahay qorshihiisa waa maxay ii sheeg adigaan kula hadlaaya aniga waxba kama warqabi iyo aamin hadalkayga kaalay eeye arga cunle maamo adiga ayaa lagu baryayaa waxaa ku wanaagsan runta inaad sheegto waan ku ognahay diib ayaad la shaqaysaa qorshuu damacsan yahay noo sheeg macan badan haddii kaleenta waxaad ogaataa xabad ayaan madaxaaga daboolka kore uga qaadayaa kadibna maskaxdaada ayaan eeyaha u daadinayaa marka waxa ku wanaagsan inaad runta ii sheegto haddii kale waxaa waaye cadcada laguu jirjirayaa sheegnaya naiga tag ayaan ku dhahay walaal taleefankeeda firaad way baxsatay walaal naagti way Tara, baxsatay kalbal. walaal 3 number ayay wacday waa inaan tijaabiya hadda lambarka aa wacaysid wuu dansaya fadlan mar kale ku soo celi yaqi kana lambarka aa wacaysid wuu dansaya mar kale ku soo celi kana wuu dansan yahay walaal way carartay naagta shidanti ya firaad gabadha telefoonkeeda aniga ahaay 3 number ayay wacda 2 number waan wacay labadaba way dansiin midka saddexaadna ma wicin hadda ayaan wacayaa yaa qaadaga meeqa saac ayaan ku soo waca taleefankaaga lama heli kara ayuu dhowayaa meeshaas nabadgelyada uma fiicno ka soo tag iyo imoo saacad gudeed lacagtaada ayaan ku siinayaa soona dhaqso waan ku sugaa hadda way iska xataa gabadha inuu diib soo diray sii annaga noo dabagasho xaaladdeena ay u ogaato hadda waa inaan annaga meesha isaga tagnaa gabadhaasna waa inaan dabagalnaa si aan diib u qaban haddii kale diib qabashadiisa way nagu adkaanaya booska waa inta ciwaankana waa wasaxsan yahay laakiin sayida aawe
ashab ma adiga soo iima naxariisa jirin adigana miyay qiyaantay maxaa dhacay laakiin adiga waajibaadkaada aniga ayaa ku marsiinaya diib يا وكذي diib aniga firaad iyo aroohi iyo taara ayaa sidan ii galeen aniga ma u malaynay meesha aad u socoto inaad tegi karto marka aniga waqtiga waa igu sii yaryahay waxaan aqaanaa wiil saaxiibkayga oo meeshaas ku geen kara marka asigan ku geena asigaana meeshaas ku geena مسلسلكani wuxuu gaar u yahay muqdisho cable isoo raac marka aniga asiga ku geenayaa waan ku wadaaya meesha joogo aniga oo keli ayaa aqaanaa aawo ninka halkan ayaan joogaa oo laba wajiilo ayaad ahayd soomaa adiga ayaa kuu naxariisanayani adiga ayaaba qayaano socotaa naftaadana adiga ayaa qayaana nin naftiisa qayaanane qayaano intee ka jirtaa qayaanada ayaa diriskula ah adiga qof aad adiga cafisa ma laha hadday aruuhi ahaan lahayd haddii ay taaro ahaan lahayd iyo haddii uu furaaj ahaan lahaaba dadkao dhan waad wada qayaantay dadka kale xataa waad qayaantay marka adiga yaaway qofka si daacad ah kuula shaqaynaya ilaan ummadda dhan ayaad wada qayaantay diib ma jira qof dunidan ku nool oo adiga aadan qayaanin qofkii aan qof bini'aadan u naxariisan asagana cid u naxariisanaysa haba yaraatee ma jirto maanta waan ku dilayaa weli si naxariis dara ayaan kuu dilayaa oo qof bini'aadan aan loo dili war xabad inaad igu soo ridda iska dhaafay xitaa xagtin iguma samayn kartid sababtoo ah waxaan ahay cunugaaga aabbihiisa arrinka bamka haddii aan idinka hadlano waxaan rabay saddexdiin inaan iskiin reebo laakiin waxaan ogaa aruuhii markaas inay bamkaas idinka badbaadinayso waayo aniga aruuhii waan ogaa inaysan marna i dilaynin mana laga yaabo aniga inaan sababsado aruuhii gacanteeda waayo aruuhii aqoon fara badan ayaan u leeyahay sababtoo ah cunugeeda aabbihiisa ayaan ahay kaalay adiga ma xishoonaysid miyaa khayaano iyo been iyo laalaab intaba kama xishoonaysid miyaa weligaana kaama dhammaanayaan tan kale adiga haddii aadan canugaada ka naxin sidaan adiga aan kaaga naxaa ii sheeg bal mar walboon isdhaa dib ku kalsoonaaw adiga ayaa kalsoonida burburiyo markaana waxaan islaa canugaaga dartiis ugu kalsoonaaw balse waxaad isku dayda canugaaga inaad disho sidee kuugu kalsoonaadaa markaa war adiga uma qalatid inaa aabba noqoto xataa uma qalatid inuu qof bini'aadana ku jeclaado maskiintan taaraa bal fiiri adiga dartaa ayay wax badan u baabiisay abaalkeeda maxaad ku guday filimkani waxaa loo tarjumay maskiintan haddii aadan jecel sii karin xataa maa nafsadeeda iska badbaadisid war mala socotaa adiga dartaa dhib badan inay u soo marta xabsi badan inay u soo gashay wax badan inay u soo marta adiga dartaa adduunyada adiga ayaan kuugu jeclaaday laakiin adiga abaalkayga waxaad ka dhigtay inaad kalsoonideeda ood baabi'iso oodna weliba i khiyaanto markan waad ka soo badbadisay diib waxaa la taagan yahay xilliga waajibaadkaaga lagu marsiin lahaa